deeqda raashinka waxaa la gaarsiiyey 2,000 oo qoys oo kamid ah qoysaska danta yar ee ay saameysay abaarta ee ku sugan xeryaha barakacayaasha ee degmada Doolow Soomaaliya. waxaa iska kaashanaya wasaaradda gargaarka dowladda federaalka ee Soomaaliya, boqortooyada Sacuudiga iyo hay'adda Tadaamun oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha bini'aadanimada. raashinkan ayaa waxa uu isugu jira bur, bariis, sonkor iyo saliid iyo baasto. gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Soomaaliya iyo qaar kamid ah qoysaskii ka faa'iideystay deeqda raashinka ayaa u mahadceliyay cid kastoo ka qayb qaadatay in raashinkan uu soo gaaro dadkan barakacayaasha ee ka soo carray abaaraha ee iminka gargaarka u baahnaa. xoolaha kanada la ku ureeyay raashinkan noo keenay walaalkan noo keenay waa u mahadcelinaynaa madaxoodana Allah raajiyo kuwii la ku ureeyay aakhir helana Allah ka dhigo khayr Allah si baraka Allah si intii oo nin kaalmayti khayr Allah si inay fardoos alu waraabi adduunka iyo aakhirka ba Allah ma ka dhibo da'ay antii ba oo kuwan oo islaamka hasiidi khayr Allah si waxaan soo gaaray maalmahani aan hadda soo dhaafnay aynu soo gaarsiiyeen hay'adda Tadaamun ee khayriyada ah iyo markaska Boqor Salmaan boqorka Sacuudi Arabiya caawinaad aad u fara badan oo gaaraysa ilaa 2,000 oo qoys loogu talagalay. waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada quruxda badan ee soo gaarsiiyay raashinkan ee wakiilka ka ah hay'adda khayriyada ah ee Tadaamun iyo markaska gargaarka iyo caawinaadda guud ee mujtamaca muslimiinta markasta lagu caawiyo ee Boqor Salmaan. waxaan ka mahadcelinaynaa oo waqtigii loo baahnaa oo si degdeg ah ugu soo gaaray raashinka intaan la eg ee dadkan masaakiinta ah ee 2 habeen iyo 3 habeen oo la soo dhaafay degmada Doolow soo gaaray oo cusub oona dabka shidanin oona hoyga haysanin oona jiifka haysanin. alxamdulillah maanta waxay heleen waxay ay nafta ku caliyaan. ugu dambeyn gudoomiyaha hay'adda Tadaamun Cabdiraxmaan Cabdirasaaq ayaa waxa uu sheegay in deeqdan raashinka ay gaarsiin doonaan sidoo kale degmooyinka Balad Xaawo iyo Luuq, isagoo sheegay inay horay uga soo qaybiyeen deeqdan oo kale qaar kamid ah gobolada dalka Soomaaliya. oo degmada Doolow ay ku soo barakaceen dad aad u fara badan oo ay saameysay abaaraha ee geeyiga Soomaaliya ka jira. deeqdan oo ay soo gaarsiisay hay'adda Tadaamun iyo xarunta Malik Salmaan ama boqorka Salmaan ee arrimaha gargaarka iyo samafalka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya wuxuu qayb ka yahay taxanihii soo socday ee lagu gurmanayay dadka abaaruhu ay saameeyeen. waxaa maanta sharaf noo ah in daafurka barnaamijkan oo 500 oo qoys aan kaamkan ku gudoonsiinayno uu nala joogo madaxa arrimaha bulshada ee degmada Doolow Cabdifataax Ismaaciil Xuseen. wuxuu naga warbixin doonaa طبعا xaaladda meesha ka jirta iyo duruufaha kala duwan. annagu waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa anoo ku hadlaya magaca Tadaamun iyo magaca bulshada Soomaaliyeed boqortooyada Sacuudi Arabiya hoggaan iyo shacabba iyo hay'adda soo gaarsiisay ee Boqor Salmaan. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa howlwadeennada iyo dadkii nala shaqeeyay